بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله تعالى ما أنت وحنا كسجود بدنا ولا الله نجا نوحرا دار خير هرب السنتا. الله يبارك يا الله ينحفظه من البجوكتان شرط شرورت الله إنك قبته. موضوع مهم جدا. جن العاشق وإن بدن لقى شيكي ضد بدن أي كشيكيين sababaha uu bili aadanka ku soo raaco maxaa kamid ah way fara badan yihiin hal iyo laba iyo saddex lama dhigi karo laakiin aan taabano waxaa kamid ah in uu ruuxa ku shubo biyo kulul meelaha ay degan yihiin Allah naga najeeye in aad ku kaadiso habeenkii oo kale adoo iska dhagax tuuraayo in uu ku dhaco dhagax adi ka socdo ama wax ka socoto waxaa kamid ah in uu ku caashaqo ama ku jeclaado sababaha uu ku jeclaanayna waxaa kamid ah in aad in badan hortaagnaato muraayadaha ama aad isfiiriso waxaa kamid ah waxyaalaha uu dadka uu ku galo jinul caashiqa sixirka in qofka sixir loo soo hagaajiyo markaasna wuxuu noqonayaa qaadimu sixir jinul caashiq oo ku jooga qaadimu sixir ku jooga meesha Allah naga najeeye waxaa kale oo la dhihi karaa bili aadanka uu ku soo galaa ama uu uga faa'iideystaa ruuxa bili aadanka jirkiisa wuu furan yahay markuu aad u farxo markaad aad u faraxdo ilaahay subxaanahu wa ta'ala duca ayuu ku siiyay alxamdulillaah alladhi binicmatihi tatimmu as-saalihaat ina dhahdo markaad xanaaqdo a'uudu billahi minash shaytaani rajiim aad dhahdo aad weysiisato xilliyadaas oo kalena waa qatar jirkaada wuu furan yahay wuu ka faa'iideysanayaa jinul caashiq waa wax aad iyo aad u xun Allah naga najeeye waxaan soo sheegnay in jinul caashiqa uu ku imaado sixir ama uu ku imaado shahwo ama uu ku imaado hawo jin caashiq walba qof uu hayo ama rag ama dumar wuxuu rabaa ahaado ma aha in uu mataqaana ruuxi oo mar walba yahay ruux uu ka zinaysanayo uu dhibayo oo imtixaankaas ku subinayo haddii ay naag tahay waxay u haystaa ninkan inuu ninkeeda yahay way u masayraysaa waxay ka celinaysaa guurka dumarka bili aadanka ama jinniyaasha kale waxaa kamid ah hadduu uu nin yahayna wuxuu u haystaa naagtaas inay tahay xaaskiisi uu u masayraya wuuna u dhimanaya waana noocyada ugu xun oo mataqaanaa bili aadanka galo marmar haddii marka quraanka la saarayo wuxuu ka fadilayaa inuu ka baxo inuu ruuxaas ama dilo ama uu asaga dhinto lianna waa nin ku dagaalamayo xoolihiisi laakiin qofkan mar walba ixtiraamayo ama mataqaanaa shahwadiisa ay kacsan tahay waxa weeye ruuxa aanan ku seexanin adkaarta markaas ayaa mataqaanaa waxa uu imaanayo jinniga la dhaho ajinnu zani oo mataqaanaa ku subinay radiila lianna kaas uu ka fudud yahay marka quraanka la saaro lianna wax kale oo waxaan uu meeshan ka helayo meel kale uu ka heli karaa marka quraanka lagu bilaabo hore uu ka cararaya waa jinnu zani kaas waa ruuxay oo ku seexdo dhar qafiif ah ama ninkii ama gabadhii ama adkaar aan akhrisanin ama wax maalayacni ku soo jooday iska seexday qofka sunnada tukado ama markuu qofka adkaarta akhristo waa qof deyrka albaabkii soo xirtay albaabkii markuu soo xirtay kii banaankana soo qufulay gurigiina bira ku wareejiyay
qof noocaas xagee lagu soo geli laakiin qofkan aanan adkaaranin sunna aan tukanin waxa weeye ruux banaanka hurdo jidka laamiga seexday yiri baabuur ima marayaan ama gaari ima maraayo wax ku maro wax unba ku mari walow kaana balaa iska socoto oo bayhoof ha ku mareerow waa noocaas adkaarta iyo ducada iyo salaada iyo quraan akhriska annaga ay faa'iido noo yihiin hadduu ruuxa markii uu tukado waxyaalahan iyo hawlahan qofka isku arkaa haddii uu intuu weysiisto ku celceliyo laa ilaaha illa allah wahdahu la shariika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هدوك علي إلى بقول جركيسا لن ولا قفلا يا لصاري دب لا مسح لي خر دبعتكم ما دعي خرته وحبا ما تقانا واضي ودفيس أذك أيوك روحاس الله نبدباديو annaga iyo walaalaheen muslimiinta meel walba joogaanba balaayada iyo cafaariida iyo shayaadiinta iyo sixirka iyo xasidka Allah naga qabto ruuxi muslim u maleegayo ilaahay soo hanuuniyo haduu Allah hanuun ugu talagelin umada ilaahay subhanahu wa ta'ala ka qabto balaayada uu suubinayna asaga Allah ku celiyo xilligan hadda la joogo xasidka batay walaalay waxba xasdi ruux taada ku mashquul لأنه وحال جوجا حلي قطر دمشدي ويبدتا روحي ما أنت نول بريما نول وحابتي وحاله موت الفجأة قفك ودك كلنته روحي هذا كاتري والولي دقدك بعد وميت الله نبت بعدي مسلمين ولا لها ما لا يعني كدتك انت تسكسو فرستان النبي صلى الله عليه وسلم حوليه من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه روح أي تسكسو فرستان أي جنل وح وروا أي شيء هدي أدو شيء حتى وح مسلمين أوغف إيديني سوبي بريواتي سالي عنه بري واتجيسا محل لغا فايدي ما يعني ما لغا فايدي ولا ها وان دمني قبل كان قال لي وحان وي سعودان واعمال جاريه الله نبد باديو مصائب تسعته الدنيا اخره والله نبد باديو عذابك الله نغا خريو اله سبحانه وتعالى عفاريدان يجن العاشقان يا بلايده وريسو iyo waxa habeenka socdo iyo wixii maalinta socdo iyo wax walba shar Allah naga qabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala umada ka qabtay waxyaalo waxa jira qofta dumarka oo la qabo iyo qofta aan la qabin ama ninka qabo iyo ninka aan qabin ay ka sameeyeen waxa kamid ah in uu ruuxa in badan taagnaado muraayada asaga oo ma taqaanay jinniga caashaqee indhihi qofkaas indhihiis ayuu uga buuxsanay indhihiis ama qofkii oo muraayada ku hor ciyaaro asagoo jirkiisa taabanayo kadibna halka ku subinayo waxa loo yaqaan caadad sirri in uu asagii isticmaalo shaydaankii ayaa si toos u isticmaalay qofkaas ama in uu suubiyo ruuxi markuu seexanayo inkastoo fiicanta inuu ruuxa isu nadaafiyo haddana sabab la'aan ruuxi uu meesha xatareysto uu hagaajiyo ayada oo wax ku riixaya markaas ayna jirin kadibna uu jeclaado in uu keligii seexdo ama uu keligii noqdo kadibna uu arko wax neeftuur ah ama wax u dhow ama wax ka akshan qaraayo ama uu arko jirkiisa markuu soo kaco habeenkii soo kaco meel gudguduudan oo xala u fiicna wuxuu arkayaa qaar ka dambo simaha ilaa iyo mataqaanay uuna ka kici karin uu leeyahay waxa weeyo qaar ka dambe dhan ma qaadi karo rag ahaado ama dumar ahaado waxa kamid ah in uu ruuxi si walba
oo uu u seexdo xilli hore uu hurdada ka kici waayo ilaa imin dambo burbur iyo caajis ilaa uu ruuxaas qabaysto uu mataqaanaaye ruuxiina wax mataqaanaaye uu dareemay oo mataqaanaaye aana jirin waa ruux xala dhan lagu shaqaysanayay ama qoomam kale ay ku shaqaysanayeen. waxyaalahaasoo dhan ruuxa markuu isku arko waxaa loo baahan yahay inuu uga hortago waa sida hore usoo sheegnay adkaarta in uu aqriyo adkaarta ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka hoos galo shayaadiintaas cadowga qofta aana la qabin waxyaalaha ay goonida la tahay waxaa ka mid ah in uu ka celiyo ragga. qoftii waa la shukaansan diyaar bay dhahaysaa raggii markay diyaar dhahdo waxaa looga dhigayaa ninkii bahal ama ninkii nooc kale looga dhigaya kadibna waxay bilaabaysaa oohin iyo qayli iyo ciriiri kadibna waxay leedahay uma baahni guur saan noloshaan ayaa raaxa ii noloshaan ayaa macaan. wuxuu u tusayaa inay ciriiri gelayso in la gumaysan doono in ay mataqaanaa dhibaato lagu hala gelayso way baqaysaa marka hore waxaa laga yaabaa inay dhahdo waa diyaar baan nahay waxay arkaysaa saaxiibteeda oo cunug haysato way ramasayraysaa kadibna markii uu guriga la tago ayuu si fiican barnaamijkiisa ogala dhicinayaa. waxaa laga rabaa marka qoftaas dhibaatada isku aragtay in ay quraan isa saarto guurka ayay ka fogaanaysaa. haddii xataa guursato waxaa macquul ah in ay marmar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qabto ay guursato. waxaa weeye ma jeclaanayso jirkeeda in la taabto ma jeclaanayso jirkeeda in la taabto lianna asaga ka masayraayo hadduu jirkeeda la taabto xataa dadka aqribadeeda hooyadeed haddii jirkeeda taabato aad ayay u boodaysaa wayna cararaysaa. waxay jeclaanaysaa ama wuxuu jeclaanayaa ninka ama gabadha in ay keligood seexdaan xaalad walbaba ha dhacda keligood inay seexdaan. waxaa dhacayso qofta dumarka waa inay laba noocba u seexanin raggana waa inuu asagana laba noocba u seexanin. adigoo cirka fiirinaya ha seexanin oo iskala dhigay dumar iyo ragbo adigoo sidii mataqaanaa lagana nahiyey sidii waa nagala nahiyey oo waa nahyi baa ku soo aruuray dabada cirka u taagayo oo sida mataqaanaa qoomamkii la halaagay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u halaagay oo kale u jiifan ha seexan anna waxaa weeyo waa qaab fool xun weeye qaabka ehelnaarka weeye waxaad arkaysaa xabad ha u seexanin intaad xabad u seexato ood mataqaanaa dabada cirka u taagto ayadana waa khalad. waxaad u seexanaysaa dhinacaada midigo gacantaada barko qaylada u jooso adoo weli adkaar akhrinayo. haddii qaabkan aan u seexanin aan bedelno faa'iido fara badan ayaan gaaraynaa. muhiim ma aho in aad ruqyo markii u orado waxaa muhiim ah daawooyin inaad isticmaasho kadibna aad ruqyada isku akhriysaa ruqyada lagu sheegayo ugu fiican waa birbinaas birbalfalaq qul huwallahu faatixatu 7 jeer aayad kursi laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay qadir oo ku celiyay intaas ay ku celinaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hanaga qabto. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuci maanta. baaraka allahu lakum ilaahay in barakeeyo sii gaarsiiyo walaalihiin addaal cala alkhayr ka faacili hal qofood gaarsiiso ayaa laga yaabaa in ajir weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga qoro. marka khayrka aan faafino